masaajkii ugu wacnaa ayaan joogaa another level. سبحان الله حالي واحد بابجي كل عدد وقال لي ولا يابلين مقال كانوا دمسترين وان كنت سدونا بلسه انت المقال كجودها اقولين مقال كان لاج نصار ماشان فلو ايغا سو ده مقال كان نوشي شركره نو بلاو مقال كينا هذا بس سيده مود اوغناhay حالي بابجي سناب جاتيسه waa la jabsaday qola ayaa soo weerartay qoladaas ayaa u dhacday weena jabsadeen runaantii sidoo kale baabaji ayaa runaantii xogtu waxaan ku helaynaa inta muuqaalka la soo bandhigin ama baraha bulshada la soo dhigin baabajiye waxa la warsaday madax furasho gaaraysa ilaa 10,000 ilaa 5,000 baabajiye arintaas wuu ka biyadiiday ama wuu diiday wuxuu dhahay adaarabtiin soo fasaxa saa xogtu ku heleno balse arintaas xaqiiq uma hayno haddaba sidaan wada ognahay Soomaalideenu sanadkii u dambeeyay 2023 ama sanadka hadda aan ku jirnaba waxay u bateen dhankaas Snapchat-ka balse ma ogtiin ama waa ilowday Snapchat-ka inuu yahay midka ugu khatarsan application-ada ee Soomaalida isticmaalaan ama dunida laga isticmaalabo aad bay u fududahay in Snapchat-ka la jabsado ama laga wareego haddaba walaasheeda ama walaalkayga waxaan ku dhihi lahaa waqti xaadirkan Snapchat-kaaga ku noqo muuqaalada kuugu jiro ama sawirada kuugu jiro iska fiiri hadii kale aybtaada banaanka ayaa la soo dhigi doonaa sidoo kale xalay baraha bulshada waxa qabsaday arooska la sheegay baabajiye iyo maxaa la dhahaa iyo wiilo arintaasi rumiya waxyaalahaas oo dhan muuqaalkan ayaa ku ogaan doontaa insha Allah soo muuqaalka noo share garee muuqaalka soo marka haddaba arinta wiilo iyo baabajiye arintaas wax jirta ma ahan waa beer ahaantii waa wax ahaantii la rabo in lagu kala kacsado baraha bulshada baabajiye waa nin xaas qabo waa nin ciyaal qabo waa nin mustaqbal hami kala siina ma ahan nin saan guur rabo saa xogtu ku helayno anyway haduu uu guursado waa nin rag ilaahay wuxuu u baneeyay afar soo marka muuqaalka baabajiye oo dhameystiran waan soo gelinayaa insha Allah marka muuqaalkan like noo saar noo share garee insha Allah so let's go si aanad xiisa goyn marwaan kula ooyaya marwaan kula hidaya marwaan ku deecaya